وعسانترka Gambaraya degmada Booqi gobolka Doolo lagu qabtay xuska munaasabada dhalashada Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatay munaasabada xuska oo markaasi lagu qabtay masjidka weyn ee jaamica ah ayaa waxa markaasi ka soo qayb galay maamulka santarkan Gambaraya mas'uuliyiin sare culimaadudiin uqaal bulshada rayidka hoggaanka nabadgelyada santarkan Gambaraya marti sharaf kale waxaana inta munaasabadani socotay laga sheekeeyay qiimaha iyo halka ay gaarsiisan tahay weynaynta dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay طريقة ugu horeysa ay la soo kulmiyeen وكانوا حنا في على عليين درجة سنة ماشي وسريسة مركا وحيالها صار النبي عليه الصلاة والسلام موليد كسلوينيو وحل كوبي كرماها معنا فضل إيو نحريس سود لقيسيو نفحات وحل كوبي كرماها تري أبو اللهب markii adoontiisa ay ugu bishaareysay nabiga dhalashadiisa alayhi salaatu wasalaam waa kii xoreeyay tuway markii ugu bishaareysay wilaadadiisii waxa marka ilaahay ku abaalmariyay faraxaas kaliya oo hameenka uu ku farxay isniin kasta in cadaabka laga xoreeyo asagoo ilaahay hadda quraankiisa ku cayo tabad ay ku soo degtay ida kana hada al-kafiru jaa damuhu tabad yadaa fil jahim muqallada qalki abu lahabaha oo ilaahay tabad ku cayo tabad yadaa abi lahab جحيمنا كوارهي سنين كستا مركي إلى عذابك كفذي فرح وكفر حنبقى لشيء سكلية فما ظنوا بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا محاد مودة مؤمن كي نبقى محبدي كل شيء إسلام نما كل شيء حتى أنا كفر حي كنا دينتيو كوينا هذه النبي محبدي سمحان مداوي أما يمكن نقول الشجال كي كفر حي يا واحد سنين كستا عذاب كذا حرية مركا محد مدة مؤمن كي النبي عليه الصلاة والسلام محبدي سي رومانتي كل شيء وكوجا كوينا هذا كل دينتيو والله يا إمام ومالي الحمد لله رب العالمين إلهنا محمد رسولنا وحن وصلنا من احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم رسول كميل أمانه ولا تعلاله بان السر الرؤى إلى رسول معنا دعايكم حفظ رسول رسول الله سبحانه وتعالى يحب كله ويقول بفضل الله نبي الله محمد واحد كتب على ولا كبرت بمسر بشيء كل حتى بفضل الله إله كل يسوع قرآنك إيه برحمته من حريستي سوى رسولك فلذلك أنكاس لولا أسنه وعين والسيئي ومد محمدية فليحر هو كفر حمد فرحي أولا أصلا هذا مسلمين سأسأل عني إذا كان لنا سألين تنباشا صحة للتهنسونين القرآن كان الله سبحانه وتعالى صلى يسكح السرايا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي الله محمد كما أن ننتظر إلا أن كان حارس أبتهي عالمين لا نسأل أمان رسولك صلى الله عليه وآله وسلم معين إنك لعلى خلق عظيم وإنك علم النبي الله محمد لعلى خلق تقن يطيعه دشوة بعد قصر ينتهي تقن يطيعه سؤال من الله سبحانه وتعالى waxaan u laabanayaa aayadan ku iftitaahay waxaan meeshaan iskugu nimid kulligeen waxayna keenay waa maxabada rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo ku farxid aan ku faraxsanahay ilaaha xilligan inoo dhaliyay inoo bixiyay inoo doortay inaan noqono ummadiisii haddana ina ka nigay
ummadii aakhiru zamanka oo ugu dambeysay ummadaha oo ceebahooda ummado kale aysan ku sheekaysanay alxamdulillah waa arrin aad u weyn oo muhiim ah ummadihii hore zalladoodii iyo ceebahoodii kitaabka inoo ku qoranta waxaynu ognahay reer nuux waxaynu ognahay reer caad waxaynu ognahay reer thamuud waxaynu ognahay asxaabul ayka waa ummadihii hore loo rogay oo manhajkan diiniga qaadan waayey nabigooda raaci waayey diintooda qaadan waayey diintooda baran waayey adduunkoodii iyo aakhiradoodiiba ku waayey xamiyatul jaahiliya waxa la yidhaahdo juhalada dhaqankeeda diindiid madax adayg cinaad qabyaalad cuqdad waxaasay ku waayeen diintoodii iyo ilaahay beenin alxamdulilah marka innaga ummatu muxamed baa layna ka dhigay ummadii ugu dambeysay oo ceebahoodaan ciduna ka sheekaysan nabigeenna bas baa ina ku markhaati kacay iyo xubnaheena waa nicmo aad u weyn gallad weyn oo ilaahay inoo galay nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam oo aynu u nimid maxabadiisa iyo ka sheekeynta dhalashadiisa waxa weeye nabigeenna sidaa wada ogtihiinba waa nabiyullaahi muxamed هنا عبد الله بن عبد المطلب نبي الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد المناف سلاوي ويدنا وآمنة بنت وهب وإنه كدرك سنة علماء إن بدن بينه كشكيس هذه بعد ما سنتين ما دام الحفلة دام قروح بدن ومولد النبي أتسو أجاسنتين سوى ناقصن أو شرف لنا دوسو أجاسنتين سوق روح لنا دوسو قيم قاطتين أيده قامر يسألون مدي وجوا وينا دجانك أما قرية وجوا الريو لا يرى الله كنقد الشيخ ظاهر آديات بدو ما سنتين intaas waa intaas annagu haddaanu nahay hay'adaha nabadgelyada waxaanu ka hadlaynaa maadaama culummadu ay leedahay wacdiga iyo mawlidka dhalashadiisa iyo siirada nabiga culummada ayaa leh waxaa nasiib darro qaba xafladii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo la hayo oo la weyneynayo oo maanta ah dadka fadhiya hadda dadka meeshaan fadhiya labadeed baa fadhida makhaayadaha dadkaasu waxaan leenahay war soo kaco oo ka soo qaybgala xafladda iyo barwaaqada iyo nibcada ka socota meeshaan ka soo qaybgala yaanu leenahay kuwa hadda ka soo qaybgalayna haddii iyo kuwa qabanqaabiyeyna ajarkeeda iyo xasanaadkeeda allahana siiyo gidigeen kuwa sheekhu u duceeyey oo sheekhu sheegay oo camalkooda la gudbinayona Allah ina ka dhigo kuwa camalkooda la celinayo ilaahay ina kaba dhigo midaas waa midaas tacdiiminta nabiga iyo weynaynta nabiga inaynu ka soo qayb galno oo ka qayb galno oo si fiican uga qayb galno oo si weyn iyo loo weyneeyo weeye shabarakaysan faligeeda iyo khayrkeeda Allah ina siiyo ilaahayna waxaan ka baryayaa waalidiinteen dhammaan intaan ka soo farcano islaam Allah u naxariisto janna fardowsana Allah geeyo nagana haysku keen dambi dhaaf ilaahay waa casiise dhammaan kuwii diinta saami ka yeesha khayr badan Allah ina ka dhigo awlaadana Allah inoo hagaajiyo qarniga lagu jiro awlaadda ugu adag awlaadda Allah inoo hagaajiyo Allah inoo hanuuniyo waxa weeye diinta Allah inoo baro diintana raggeena waa weyn iyo gabdhaheena waa weyn aynu barano oo waxa weeye awal baa sheekhu sheegay khayr badan Allah siiye geed qalalay baa la qoynayaa buu ilmuhu waxa weeye mar hadii waalidku wax baranayo diinta ku fiican yahay ilmuhuna wadada waalidkay maraya sababta waa soo marnay haddaad adigu askari tahay wiilkaagu askari buu noqonayaa haddaad darawal tahayna darawal buu noqonayaa haddaad wasiir tahay wasiir buu raadinayaa haddaad macallin iskuul tahay macallin iskuul inuu noqdo rabaa sababta maxaa keenay dabarfishka odayga uu arkayaa ma ogta marka ilmihi hadduu ina ku arko inaynu diintii baranayno ku xirannahay ilaahay ka baqayno
waxa weeye gabadhii sidoo kale waa hooyada waa gudoomiyaha reerku waxa weeye dawladda waxa laga keenay qoyska laga keenay odaygu waa madaxweynaha wiilka culadka waa ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaankuna waa hooyada oo waxa weeye qalibada guud bay haysataa waxa weeye marka haddii hooyadii wax baranayso oo odaygii wax baranayo oo wiilka culadka haddii intii lagu xasbayo uu baranayo reerkoo dhan faamilkoo dhan waa hagaagaya waxaa mahad leh oo aan ilaahay ugu mahadinaynaa ilaahaygii xafladatan sharafta leh oo siirada nabiga lagu oogahayo ina ku kulmiyay aynagoo dhan waxaan u mahad celinayaa mar labaad ciddii soo abaabushay in laga dhigo maalin cad iyo masaajidka waxaan kale u mahad celinayaa sida tan maaragtay sharafta leh oo quruxda badan indhaha iyagu hayaan ciddii maaragtay arrinta tan ka soo shaqaysay ayagana waa u mahad celinayaa waxaa kaloo sharaf ah oo maantayto aanu aada ugu faraxsannahay culummadeennii waaweyneed oo sheekh shaaciro hogaaminahayay inay maanta ina kala qayb gashay siiradii nebiga ayadana farxad bay noo tahay waxaa kaloo farxad noo ah masaajidka dhexdiisii inaanu saaka inta nimid oo ictikaaf niyoonnay aanu saacadatan ku jirno oo inta ay nagu socotay khayrkii iyo siiradii nebiga ay intaa nagu socotay iyo wacdigeedii ayaduna waa farxad ilaah baa mahaddaas leh